Assalaamu calaykum. London waa caasimadda boqortooyada Ingiriiska. Waxaa ku yaala xarunta ugu weyn ee BBC, sidoo kale waa xarunta siyaasadda, dhaqanka iyo dhaqaalaha ee dalka. London waa magaalo taariikh ahaan u laabanaysa ilaa iyo xilligii Roomaanka. London waxay ahayd xarunta ganacsiga ee adduunka laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 18aad ilaa 1914, waxaana laga furay magaalada tareenkii ugu horeeyay ee koronto ah oo mara dhulka hoostiisa sanadii 1890, waxaana si xun u waxyeeleeyay bambooyinka Jarmalka ee dagaalkii Ingiriiska intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. London waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu horeeya adduunka. 2015, London waxaa loo aqoonsaday inay tahay magaalada dalxiisayaasha ugu badan ay soo booqdeen adduunka oo dhan, waxaana soo booqday in ka badan 65 milyan oo dalxiisayaal ah. Sanadii 2016, shaqooyinka dalxiiska la xiriira ee London waxaa ka shaqaynayay 700 oo kun oo shaqaale, waxayna ka faa'iiday magaalada London dhaqaale gaaraya 36 bilyan oo pound oo u dhiganta 49 bilyan oo dollar. London waa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu saameynta badan. Waxay saameyn weyn ku leedahay ganacsiga, waxbarashada iyo warbaahinta adduunka, waana mid ka mid ah xarumaha maaliyadeed ee ugu weyn adduunka. Magaaladu waxay caasimad u ahayd 6 dal xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. London waa xarun weyn oo caalami ah dhinaca waxbarashada iyo cilmi baarista tacliinta sare. Waxaa ku yaala jaamacadaha ugu sumcadda iyo tayada wanaagsan qaaradda Yurub. Ardayda u imaatay inay wax ka barato magaaladan waxay gaarayaan ku dhawaad 100,000 oo arday. Tiro ka mid ah hay-adaha waxbarashada ee dunida hormuudka ka ah ayaa fadhigoodu yahay London. Waxaa ku yaala Imperial College London oo ah jaamacadda kaalinta 8aad ku jirta dhinaca tayada waxbarashada ee adduunka, iyo University London College oo ku jirta kaalinta 10aad ee jaamacadaha ugu sareeya adduunka. Sidoo kale London waxaa ku yaala The British Library ama maktabadda Ingiriiska oo ah maktabadda labaad ee ugu weyn adduunka. Sidoo kale sanadii 2018, wax soo saarka guud ee London wuxuu ahaa ku dhawaad 700 oo bilyan oo dollar, waxayna u dhigantaa 4 meelood meel guud ahaan wax soo saarka dalka UK. Sidoo kale magaalada waxaa ku nool shakhsiyaadka ugu hodansan qaaradda Yurub kadib Paris. Sanadii 2015, guryaha deegaanka ah ee London waxaa lagu qiyaasay qiimo gaaraya 2.2 trilyan oo dollar. waa qiimo la mid ah wax soo saarka sanadlaha ah ee dalka Brazil. London waxaa ku yaala 4 goobood oo ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee adduunka. Sidoo kale magaalada waxaa ku nool dad ka soo jeeda isro kala duwan, sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka qaranka oo ku salaysan qiyaasaha tirakoobka la sameeyay sanadii 2011 ayaa sheegaya in 60% dadka ku nool magaalada London ay yihiin dad cadaan ah, halka 13% dadka magaalada London ay ka soo jeedaan isir ahaan qaaradda Afrika. Sidoo kale 20% dadweynaha magaalada London asal ahaan waxay ka soo jeedaan qaaradda Aasiya.